waxaan isugu gashay inaanu waraysi gaar ah la yeesho Cabdiqaadir Cali Boolay oo markaasi ah suxufi rugcada ah aqoonyahan qoraal tab ah isla markaasna ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee taariikhda Soomaaliyeed ilaa haatan wax laga weydiiyay Cabdiqaadir waxa ka mid tahay odayaasha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay bandhigga carwada Soomaalida ee Finland oo ah markaasi liistabaad sidee baad u aragtaa jawiga dalkan Finland iyo bandhigida qoraaga markan uu soo bandhigay والله آدي أدمن وفرح سنة هاي إن صنت كان لحسنة هراء دافتي وما أنت صنت تتضاعده إن كسوة خيب قال ما لا بدنا بندق له خبتين وان كخيب قالي لكن آدي وحان وفرح سنة هاي أنت بوا ماشى لصوحية وحا نصيب وناج ما أنت لأن يرضى ما أنت سو كوريسو إن فرصة وهلين أنت سو بوب oo af Soomaali ku qoray wali khaasatan waliba waqti caruurteeni maadaama meesha adduunka ay ku baahsan yihiin kaalin weyn waxay ka heli karaan buugaagtan meesha la soo dhigay oo ay ka mid yihiin kuwii caruurta maaweelada caruurta taariikhdii ummadda Soomaaliyeed wax kasta oo Soomaali lug ku leedahay dhaqan ha noqoto wax kasta ha noqoto maanta meesha laga heli karaa aniga raggaygi ama jiilkaygi fursad uma helin inaan saas buugag ceenkaas oo af Soomaali ah inaan helo qoraal oo Soomaali ah ma jirin laakiin nasiib wanaag maanta waxay fursad u helan jiilka annaga naga dambeeyay ama kuwa naga sii dambeyn doono waxay fursad u heli karaan ama fursad u helayaan inay maanta afkoodii hooyo inay ku bartaan iyagoo waliba ku dhashay dalalkan aan qaxootiga ku nahay waliba iyagoo dalkaas oo dalkooda aan ahayn afkooda aan ahayn wax ku baranayo Ingiriis ku baranayo Finland ku baranayo waxba ku baranayo haddana waxay fursad u heleen walaalahoodii ama aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxay isku xilqaameen inay af Soomaali ay buugta ugu qoraan sidii taariikhda sidii gabayaashii sayidka ama cigaal shiilaal oo la og yahay oo sheeko fiican leh caruurta waagan caruurta ahayn waa nagula maaweelin jiray waxa la oran jiray war cigaal shiilaal markuu meel arkay waxaas arkay baa la yiri meel oo waxa ka taagan geed ka taagan markaas wuxuu yiri la yiri war geedho waa iska fadhiisay habeenkii meeshu saxday baa la yiri markuu waxay soo kacay haddaan ku mooday inaad geed tahay والله إن نعاو ماشي السحدة مركز الصومالية فرصة تاسو إهلي إن شاء الله. قادر إمسكورا إمسكوا تي إلى يهاتان أو ديارة. والله بوق بدن وسي ديارية لكن دابعات سي ما دام دلكي أبربري أنا أقول رجينا إن بوق تيجي دلكي أن كنت دابعه لكن هذا هو قار هي صوص عضا الرجينا يا سنة كان وديسة إنها خاصة بحان وكل أبسن هل كي SYL وكنت خاص. الذهاب للشرطة الصومالية تجسني مدام أنا تاي وضياش ربع داقة هات تنقسم الصومالية. عن حضر الله الصومالية يصير سيدو باسين والأكتاب بدون أن يدخل. ما أنت باقي أنو جيدنا وحواي ومد الصومال باقبان جيدنا ويؤجيهين هلجن نير أي لصومري ما أنت هلجن كي لصومري حرنيمدي للربي ما أنت جيل كان قدم بي إنه يكون راحستان أما هرمود النقدان ونصيب درد عليين هلجن كاسي لبربريين وحنا بربريين ضد وحما قرده هدي وحقرنا يان ضد كم أنت عقتا مريي دلكي ما أنت مريين هدي وحقردهين تاسي وحن لها لأن يرد وحن كبورنا يا لأن يرد وحن كبورنا يا لأن يرد وحن كبورنا يا إني نسكو بيران إني إسقعنت إسقبصدان إني دلكي بدباديا ما أنت فرصة كلي نوهرتي وحواية إن dhalinyarada ay guntiga dhiisha isaga dhigaan ay badbaadiyaan dalkii ummadda Soomaaliyeed oo baaba'ay soo celiyaan qarannimadii sharafta lahayd inay soo celiyaan ayaa rajaynaya Ahmed Weheli Ahmed Fiji sidoo aragtaa maadaama aad ka mid tahay qorayaasha
dalkan Finland bandhigan carwooyinka sanadkiiba mar la qabto ahna markaasi kiisi dadba aad iyo aad u mahadsantahay su'aasha ay weydiisay oo la xiriirto bandhiga buugaagta Soomaaliyeed oo ah markii toddobaad oo lagu qaban dalka Finland aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadka isku mashquuliyay inay bandhiga noocan qabtaan aad ayaan ugu mahadcelinayaa sababtoo ah ummad jiritaankeeda waxay ku xiran tahay hadba dadkeeda aqoonta leh sida ay wax u qoraan ay u gaarsiiyaan dadkooda u baahan marka dadkii soo qaban qaabiyay ama ha ahaadeen dadkii Soomaaliyeed oo publisherska ah ama dadka Soomaalida oo qoraayaasha ah oo ka yimid adduunka dacaladiisa ka yimid si ay dadka Soomaalida u gaarsiiyaan buugaagtii ay qoreen dadka Soomaaliyeed oo ku nool Finland aad iyo aad ay waxaan ugu boorinayaa inay buugaagta loo soo bandhigay qaataan akhriyaan si uga faa'iideystaan aqoontaas loo soo bandhigay Fadlan waxaad ka mid tahay macallimiinta Soomaaliyeed ee dalkan Finland laga soo bilaabo Karabka, Yerbanga, Banto, Helsinki haatan ay jirto sidoo kale aragtaa buugaagta carwada Soomaaliyeed ee sanadkiiba mar la qabto markaas galaya kiiska wallaahi horta nasiib wanaag baan horta marka uga tilmaamayaa inay suurta gashay carwadan oo kale Finland lagu qabto marar horena waa lagu qabtay laakiin aniga waxa weeyaan markii ugu horeeyay ka soo qayb galay waxaana igu soo dhiirigelisay Sweden sanadkii hore oo ku soo arkay ayaan aad u xiiseeyay run ahaantiina maalin walba waan wareysan jiray goorma imaanaysa waana aad bay u fiican tahay carruurtu waxay helayaan sheekooyin fara badan oo ay bartaan waalidiinta ku dhow waxay helayaan waxay carruurtii u sheegaan oo tusaan marka waxa weeyaan aad iyo aad bay u fiican tahay in afka la sii horumariyo hooyooyin badan iyo aabbayaal badan oo Soomaali ah oo dalka Finland ku dhaqan baan hawshan ama kala socon waa maanta kuwa waxaan oran lahaa aad baan rumahaanta uga xumahay waxaan jeclaan lahaa inay ka soo qayb galaan laakiin nasiib wanaag aniga ardaydeeda ila socoto waalidiintooduna way la socotaa marka waxa weeyaan waxay tusaysaa inay waalidiintu haddii ay xiisaynayaan in ilmihiina xiisaynayaan marka ta ugu horeysa tiirka ugu horeeya ugu muhiimsan waxa weeyaan waalidku inuu soo dhiirigeliyo inuu arko inuu carruurtiina tuso markaa tusaale fiican u noqdo 2,100 and something copies, not 8,000. Okay, I do have with me today at the Helsinki Book Fair Tina, who is our host. We are in Helsinki City Library. It is where we have started the journey. As the Chinese, they said, a journey starts with the first mile. Tina, please, let me present you to the Somali media. Could you give a little idea about the Somali, since you are our host, what is your impression about the Somali Book Fair arranged jointly by Skansen Publishers, Helsinki City Library, and Pastel City Library? Yes. What do you think? Well, first of all, I would like to say all the viewers, Iskawaran. Iskawaran, good. And it's very important that we have this book fair here in Finland and in Helsinki, and especially in Pasila Library, because this was the first place where the book fair was held back in 2005. That's right. Yes. We have quite many Somali customers in our libraries, especially here in Pasila. Lots of Somalis use this library. Right. And it is very important that we have books in Somali language in our collection. Can you give us any idea about the Somali collections available at your library? Well, in the Helsinki City Library, yes. How many titles and how many copies do you think approximately? We have about 2,100 copies. 56, yeah. 56. Okay, he knows best. Copies, right? And last year we had 5,031 loans. Let me ask you that question. We put so many efforts to encourage the community to come to the library and borrow books. Yes. Is that call has been heard?
Yes, but more could come. Right. Yes, Right. we would like more Somali people to come and borrow. To the library yes, and and borrow books. and borrow Of course, books. people use the library also in other ways. They Right. come to the library to use the computers, to read the papers from the net. Right. And so that's the web. also important. Yeah. Yes. Thank you very much, Tina. Tina is our host this year. We are so proud to have Tina. And thank you very much for all your effort, Tina. Thank you. Thank you. Okay. haddana waxaa ii suurto gashay aqoon-yahan cabdicasiis cali ibraahim xildhibaane oo markaasi ka mid ah qorayaashii ka soo qaybgalay carwadan toddobaad oo markaasi galaysa sanadka toddobaad ku qabto isagoo markaasi sida aan qiyaasayo cabdicasiis ay u tahay markii labaad ee uu soo gaaro dalkan finland cabdicasiis sidee baad u aragtaa jawiga dalkan finland iyo sanadka toddobaad ee aad ka soo qaybgashay wariya waxaan muse aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan marka hore ammaan iyo mahad ballaaran u jeedinayaa dadka Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkan guud ahaan Finland qaabka ay runtii u suurtageliyeen annaankii lagu horumarin lahaa qaydka taariikhda iyo sugaanta Soomaalida waxaan aad iyo aad ii farxad gelisay markii aan arkay walow aniga ay maanta igu adag tahay inaan hal eray oo afka dalkan lagaga hadlo finishka aan iraahdo maadaama ay tahay sanadkii labaad ee aan ka qayb galo bandhig noocana waxa ay farxad gelisay library-gan weyn ee ku yaalla magaaladan gabadha horjoogaha u ah markii ay tiri iska warran sidee tahay aad bay runtii ii farxad gelisay waxaad arkaysaa dhibaato kasta oo dhacdaa waxyeeladeeda leh horumarkeedana leh waxaan aad iyo aad runtii ugu farxay qaabka ay dadka Soomaaliyeed u agaasimeen u suurtageliyeen in afka Soomaaliga uu noqdo qaydka xagga taariikhda ugu ballaaran la amaahday lambarka tobnaad marka laga reebo afka finishka xildhibaan cabdicasiis cali ibraahim imise baad qortay bugaaggu oreysa bugaagtaan qoray waxay kala yihiin guud ahaan in general waa 9 buug waxayna kala yihiin waxay kuu dhigeen ma kugu dhaceen taxanaha taariikhda Soomaaliya mahmaahyo murti iyo madadaalo sooyaalkii sugaanta Cabdulla Raage xulka mansooyinka Soomaaliyeed horseedayaashii halaaga